شيخو هاي سهيلينا أي كل هذا وأنت أنا لو فورين حلقة وحكا وقالوا نه بطولي أنكو دعية ما ناي أنت أنا لو فورين وحكا وقالوا حلقة وحكا وقالوا أي ودني لحدا عرورة ودني waxaan kale rabaa inaan runta sheego hadii lagu furo oo odagan guriga ka baxo lix caruura nin kugu rabo ma jiro markuu 2 bilood ku shukaansado maalinka ugu dambeeyay uu ku yiraahdo inaan ku guursada rabaa ay aad tira lix caruuran leeyahay kow oo bilaaba handhuuf beenha ku dhageyso maalinka saddexaad baloogo ka saaraha telefoonka war maxaa dhacay walaal iga raali noqo culays baa igu soo kordhay wax ku soo kordha ma jiraan lixdan caruur oo ka naxay gabadha 4 caruur hayso ama 6 caruura waxaan codsani raga Soomaaliyeed hadii guur labaad macaan gabadha ilmaha hayso in loo dulqaato la mid maaha gabar shalay guriga soo gashay aniga kama wado midaan caawa guriga timid ah la xaqiro taa adiga iga wakiil insha Allah ta'ala laakiin isku mid maaha gabadhan caruur bay haysaa adigii ku badisay midaan waxaad kala heli doontaan Ilaahay baa garanayo laakiin Soomaalidu waxay dhahaan muro farq ku jiro muro geed saaran looma daatay dhahaan gabadhan 6 caruur ay haysaa waxaan codsani iidan inaan wax loo furin oo mid dama aan la furin iidana inaan la furin ninkiinu ku xirantahay hadaadan adkaysi lahayn oo midaan damana aad haysan karin oo aadan dhaqan karin gurigaagi ugu muhiimsanaayna aadan haysan karin ha guursanin taas ragan dhahaya maalin walba li weydiiya su'aalaha jumciya ugu dambeysay garaacad boosaaso balad weyn laga soo wacay gabdhaha la qabo la furay wala dhahay sheekhu sidee yeelna in loo dul qaato in badan loo dul qaato gabdhaha caruurta hayane waxaan ka codsanaa qaarkood ayagoo wax loo ogol yahay oo aan ka warhaayo ayay diidaan markii furin lagu sheegane sheekh naftigiisa qoday ka soo waayay adeer oo dhibaa jira moogta adiga adeer baa loo geeyni walaalkeeda loo mari aayadeeda loo mari gabaray saaxiibo yihiin loo mari odayga wuxuu leeyahay walaasheeye $1 ku siini masirtira walaasheeye dhabarka iga dharbaax reerkeyga ii ogolaaw dil badan baa adduunka ka jiro aan tarmo meelan gaaray ilaahay baa og haweenkana la mid ma naqadoontid wixii aan ku sii jirana wax baan kugu kornin gabadhaana hal haween baan u hooyani 6 haweenaada ku soo hooyani gabadh la yiriyo diidaan ogahay markii hal dalqa lagu furna sheekhi qod ka wacday xaqiiqa rabayna sheega moogta waxaana la hadlay haweenka aqliga leh ninkaaga iyo ilmahaaga isku hayso wuxuu ku ogol yahay ka qaado ragana waxaan leeyahay haweenka caruurta leh haloo dulqaato la mid ma aha way ka qaalisan yihiin biri ilmahaaga waxa laga yaabaa sida dayniila ka dhacday inuu inta nin soo dhax fadhiisto ilmahaaga uu ka dilo xaqiiqda rawa inaa sheego ragow aqli waa shaqeeyo ilmahaaga hayso ilmahaaga ilxun lagu fiirin adigoo nool ilmahaaga yaa laga dilin waxa laga yaabaa habartan waalan markaad furto nin balwad la inay inta keento oo gabdhaha ka fuul Soomaaliyeena ka dhacdo waxaan qaraay mal aniga ya gabadhaada inuu ka faro xumeeya laga yaabaa wayna dhacday Kismaayo ka dhacday Muqdisho ka dhacday iska ilaali marka oo sabra haweenka guud ahaan haweenka loo sabro gaar ahaan kuwa caruurta ayaa loo sabro waxaan haynaa maanta kuwa dharka xortay waxaan haynaa dibkaad aragtay ay haweenka laga maraa ka faa'iideysto reerkoodii laga jiriya labada qofoodo israbto wiilkii gabadhii oo israbo anu ma aan aragnin gabar wax bixinayso wali ma aan arag gabadhii ku rabto aabaheed markuu ku diido ama uu ku deeriyo meeshaad rabta inaad kala dhacdo ku ogol ayaa hadalay raga Soomaaliyeed bay waxay dib ka maraan sidii uu heli lahaayeen haweeney ee nolosha la qaybsadaan qiimaha ay haweenka leeyihiin raba inaan ka hadlo maanta gabadha ugu yar ee Soomaaliya reerkeeda la xiriiro $1 baa laga bixiyaa oo tugma ah oo tugma ah waa oo aabaheed la soo shukaamiyo ee la yiraahdo duudkaaga igili
ay adeeryaal iyo idayaal iga qabo $1,000 markaasaa waxaa usii dhiman sakan gurigaa la dejiyaa haddaad nin waxaysa tahay ay gabadhu ku og tahane maba kuu naxariisanaysaba alaabta xataa ma kaa yeelayso gurigaaga waa qalabaysan yahay waxay ku leedahay ma jirto sheekh alaabta idhex geey alkawsar anaa soo xulanaya markaasay ku leedahay waxaan ogahay gabar dahabkeydii iyo jiifkeydii iyo fadhigeydii $24,000 ku baxdaan ogahay aniga Sheekh Shantaay dahabkeydii iyo fadhigii iyo jiifkeydii bis $24,000 ku baxday